ku soo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. kulanti wacan khiyaartana daawanaysa ay qodobada wararkayga ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu anbabaxay dalka dibadiisa ayaa lagu sogoontay magaalada Garowe. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo magacaabay qaar kamid ah golihiisa wasiirada. boqolaal qof oo ku geeriyooday biyo xireen ka soo dumay dalka Brazil. magacaygu waa Bushra Garaas. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan inta aynu ku guda jirno tabinta warka dunida ee warbaahinta dawladda. hase ahaatee Google noo soo urtiyay hilaaco galalacyadii bulshada waa guul rabbiye gadaa waxa noola siman ogo waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarketka waxaad ka helaysaa shoppingka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha tinta, shaambooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso ka soo horjeedka Hotel Chuba ama wixii faahfaahinta dheer kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka waxaana idin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castrol. olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka petroolka ayaa leh quality aad u sareeya halka olyada Castrol aad u isticmaali karto gaadiidka dieselka ama naaftada. waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo kamid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horeeya dhanka olyooyinka gaadiidka. wixii faahfaahin oo intaas dheer kala xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda. caanaha Maamiland ubadkaynu dhalayniyo wax dhallaanka la siiyo dhuuniyo dib u qaato naaska hooyo u dhaama dhaayaha lama saarin ee dhahaya aan iska dhaafay mid kala dhinac taalo naaska hooyo ku dhowo iyaga u dhigmaayay magacooda dhageyso waa caanaha Maamiland. xafaayadda News Living waxa idin keenay Shaafici Pharmaceutical Company sidoo kale waxa uu idin keenay weybkii carruurta oo tayadiisu ay tahay mid aad u heer sareysa. wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir Shaafici Pharmaceutical Company ambaba telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. markale kulanti wacan khiyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan sogoontina la qaatay golihii xukuumaddiisa waxaana uga mahadceliyay sida wanaagsan ay u soo wada shaqeeyeen. sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Siciid Qoslaaye. madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulan casho sharaf u sameeyay golihiisa wasiirada saraakiil ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada ee dawladda Puntland waxaana uu dhamaantood kula dardaarmay la shaqeynta dawladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani. Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee dawladda Puntland ayaa u mahad celiyay dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay casho sharaftiisa sagootinta waxaana uu ka waramay muhiimadda ay leedahay iscafiska iyo wadajirka bulshada iyo mas'uuliyiinta. aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa imaatinka iyo inaad ugu soo sharafteen inaan isu nimaadno. aad baan waxaan ugu mahadnaqayaa saaxiibadayda aan muddada soo wada shaqaynay wanaagii badnaa iyo sharaftii badnayd iyo karaamadii badnayd aan ku wada shaqaynay dulqaadkii iyo dhabar adaygii aad ku soo shaqaynayseen muddada oon dalka ugu wada shaqaynaynay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. midda koowaad marka hore dadku markay soo wada shaqeeyaan oo shaqo ay saaxiib shaqo ku yihiin dabcan marka qaarkood waa la isxantaayo waa la isqarinayo xawaasan marka marna hadda ku celinaya horta dhammaanteen cafaa liya masaabaxa waxaan rabaa inaan saaxiibaan ahayn iswada cafino runtii
kulligiin shakhsi walba oo maaha tacaban baanta fadhiya inta naga maqanba runtii waxaan wanaag ahayn iyo jacayl ahayn iyo walaaltinimo ahayn oo aniga qalbiga niyadda ku jira mushrikiin insha Allah dabcan saaxiibo forever aan noqonayna oo inta waa la socdaayo waa la dhimanayaa laakiin intaan adduunka wada joogno dad iska warqabo oo berita dad iska soo horbaxaan saaxiibaho wada casheeyo oo wada caweeyo oo ismarti qaado oo ayaanu ahaan doonaa saaxiib dhowaan runtii aanu qof walba u noqonaya insha Allah haddii ilaahay yiraahdo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga ee dowladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Zainab Ugaas Yaasiin oo ku hadlayay afka golaha ayaa ku dheeraaday sidii wanaagsanayd ee madaxweyne Gaas uu soo hogaamiyay golaha wasiirada ama deegaanada Puntland 5 sano ee la soo dhaafay arinta guul weeye aad iyo aad baan arintaas caawa farxad ay noogu sameynaysaa waxaan intaa ku darayaa mudana madaxweyne 5 sano dalkan madax u ahayd oo daadihinaysay karaamo iyo sharaf iyo cisi iyo waxqabad iyo guul baynu 5 sano ku wadnay oo hoggaanka ugu ahayd ma ilaawi doonaan dadka 5 sano aad daadihinaysay waxqabadkaagii kartidaadii dulqaadkaagii iyo mas'uuliyadaadii maskaxdooda waxaan hubaa inay raad ku reebayso aan la ilaawin oo xusuusa waxa kaloo xasuus ah oo aasaarta aad ka tagaysay ka mid ah dadkii aad la soo shaqaysay oo dhammaan golayaasha dawladda ah sidii qaboobayd oo dabacsanayd oo isu dhimrinta lahayd oo hawsha aad ku soo waday aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa uguna faraxsannahay wada shaqaynteena muddadii aan soo wada haynay shaqada taas waa midaas waxa inta ay dheer mudana madaxweyne arinta ah lala shaqeeyo dawladda iyo madaxweynaha cusub arintaas waana waajib sharciga islaamka iyo dastuuriyanba labaduba waa sharci madaxweynaha iyaga hore mudane cabdiweli iyo murwadiisa waa sagootinaynaa kal iyo laab baan u sagootinaynaa wuxuu ahaa madaxweyne tanaasul badan dulqaad badan xasarad yar muddadii uu Puntland hayay dhibaatada iyo maxaan ku dhac qabiilada iska hor imaan jiray iyo aad xasartada gudaha ay u yareyd waa uga mahad celinaynaa haddii intii wax badan waa qabtay haday wax qabsoomi waayeenna waxaa jira duruufo kuwa dagaal iyo duruufo kale oo iyaga ruuxooda ay keenayaan xaaladaha markaa taagan madaxweynaha cusub mudane Siciid Deni waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay xilka Allah ku fududeeyo haweenkuna waxa weeye hadda wixii la dhisay dawladda 66kii baarlamaanka gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa hal gabar baa kaga jirta Maxamed Saciid Qoslaaye Puntland TV Garowe madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa safarkiisii ugu horeeyay intii uu xilka wareejiyay waxa uu ugu ambabaxay dalka dibadiisa waxaana Garowe ku sagoontiyay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda Puntland sida faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Sharmaaka Cabdulqaadir Jaamac madaxweynihii hore dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u ambabaxay dalka dibadiisa markii ugu horeysay tan iyo markii uu wareejiyay xilka madaxweynaha dawladda Puntland waxa garoonka diyaaradaha ku sii sagootiyay wasiiro agaasimiyaal iyo qaybo kamid ah saraakiisha ciidamada dawladda Puntland madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta kula hadlay inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha Janaal Maxamed Abshir ee magaalada Garowe ayaa kula dardaarmay shacabka reer Puntland inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee dawladda Puntland sida Cabdullaahi Danay iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash waxay ila qumanaatay maadaama baxaya maanta oo markii horeyso oo intii xilkan wareejinay dadka aan ka tagayo inay ila bilaabtay inaan dardaaran yar ku iraahdo shacbiga reer Puntland wax badan oran mayo runtii waa u ducaynaya insha Allah ila wadankeena inuu barakeeyo shacabka waxaan kula dardaarmayaa inay runtii dowladnimadooda ay xajistaan in amnigooda ka shaqeeyaan inay dhaqaalahooda iyo horumarkooda iyo dowladnimadooda taabagelaysa inay bari taaraan oo support gareeyaan xukuumad cusub baa timide xukuumadda cusub
in si fiican loola shaqeeyo la garab istaago dalka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda markay cusub yihiin waa markay ugu baahi badan yihiin taageerada shacabkooda iyo dadkooda marka iyagana in si dhow oo wanaagsan loo shaqeeyo horumarka Puntland cid kasta ayuu dan u yahay dubdhaca Puntlandna cid kasta anaga ayuu dareen ku yahay marka inaanu aan saayeel insha Allah waa muhiim saaxiibadayda xalayna wada joogno wada cashaynay maantana yimid inay u soogotiyaan iyana kacayr gaaray iyo walaaltinimo gaaray runtii ayaa waxay naga dhaxaysa aad bay u mahadsan yihiin marka guuriga khayr baan rajaynayaa Puntland waa socotaa meel fiican bay gaaraysaa iftiin wanaagsan baa meel walba ka muuqda marka waxaan rabnaa inaan hiigsano iftiinkaas wanaagsan iyo horumarkaas inoo muuqda dhammaanteen inaan waxaan wax badan ku shukrino ilaahay ugu xamdi naqno iyo Puntland haysataa marka inaan iyadan xajisano siina maaragtay kobcino oo ku dadaalo amnigu hagu horeeyo horumarka dhaqaale ku xugsado dowladnimada ka shaqaynteeda institution buildingka iyana maaragtay oo iyana muhiim ah iyo in marxalada hadda kala guurka si fiican loo garab istaago xukuumadda cusub shabakada wada jaamac Puntland TV Garowe hay-adda UNDP ayaa magaalada Garowe tababar socon doona muddo 3 bari ugu qabatay golaha wakiilada dawladda Puntland sida faafahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Jaafar Macalin Maxamed hay-adda UNDP ayaa magaalada Garowe tababar socon doona muddo 3 bari uga furtay mudanayaasha golaha wakiilada dawladda Puntland waxaana tababarkan muddada uu socdo mudanayaashu ku baran doonaan arrimaha la xiriira shaqadooda xeerdejinta sida arrimaha dimuqraadiyadda la xisaabtanka xukuumadda iyo wada shaqaynta golaha iyo bulshada Puntland oo kamid ah shaqooyinka horyaala baarlamaanka Puntland madaxa hay'adda UNDP ee Puntland ayaa sheegay in sababta tababarkan loo qabtay ay tahay in xildhibaanada cusub wax laga tuso shaqada hortaala golaha wakiilada muddada 5 sano ee soo socota how the parliament debates happen but more of how the technicalities the processes the procedures the steps in conflict resolution in oversight function or making laws is discussed among yourself with a facilitator who is coming with well-tossed knowledge and experience from other parliament and being a former MP involved in so many different negotiations when it comes to laws and regulations. halkan waxaan idin jooga buuli ninka aan tababarkan bixinaya oo xildhibaan hore ahaa oo soo xakadkiisa xildhibaan hore ka ahaa dalad badan oo afrikaana shaqooyin badan oo ay ka soo qabtay marka waxyaalaha ka faa'iideysan waxaa ka mid noqon doona hadday noqoto khilaaf xalintiisii haddii ay noqoto shaqooyinka kale baarlamaanka aqoon buuxda ayuu wataa oo idinka siin doona gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo ayaa isna dhankiisa sheegay in shaqada golaha wakiiladu ay tahay la xisaabtanka korjoogteynta iyo sharci dejinta si taas loo hirgeliyana tababarkan muhiim u yahay shaqada baarlamaanka cusub ee Puntland waxaan dimuqraadiyadda la yiraahdo iyo baldiinteena waxay isku waafaqayaan oo dhinaca waafaqshiya dad muslim oo nahay wixii muslimnimada ku caqabad ama waxyeelay waxaan noo ku jiray naga xisaabta xoojinta shaqada xeerdejineed ee baarlamaanka waa qaabkii inagu shaqadeena fulin maaha waxa weeye waa la xisaabtan ama korjoogteyn iyo xeerdejin marka taabagelinta doorka korjoogteynta ee baarlamaanka uu korjoogteynayo golayaasha kale wixii nidaam ahaa ama xeer ahaa ka fulay ama dastuurkeeda arrintiisaba ahayd koonfurku iyaga wakiisha dadka helana iyagunbaa dadka usii dooray oo wakiishay xoojinta isla xisaabtanka iyo doorka wakiilnimo ee baarlamaanka muxuu yahay waa wakiil yaa wakiishay shacabka awoodda ugu weynna waa shacabkii ka soo dhex baxeen wixii kalena iyagay ka farcaneen marka waxaa weeye marka wixii la xisaabtan ah
dadkan iyagaa wuxuu ugu dhiibay waxay ugu dhiibeen inay ku ilaaliyaan kuna kor joogteeyaan waa la xisaabtanka doorka wakiilnimo ee baarlamaanka dadka iyo xukuumaddana iyagaa u dhexeeya iyagaa kala ilaalinaya qodobka waa baarlamaanka iyo ururada bulshada rayidka ah la tashida iyo dhegeysiga dadweynaha waa shacabkii u magacyo kale waxyaa loo kala sameeyo wixii magacya laakiin waa shacabkii la tashiga iyo dhegeysiga ugu muhiimsanna waa shacabka iyo habdhaqanka baarlamaaniga ah qofka baarlamaanka maxaa laga rabaa sidee la rabaa inuu waxu wado sidee la rabaa shacabka inuu la dhaqmo sidee la rabaa inuu shaqadiisa ula dhaqmo sidee la rabaa inuu xukuumadda ula dhaqmo kaa laftigiisu waa muhiim waxaan marka ku boorinayaa golaha inaynu ka faa'iidaysanno dhegaysanno isku dayno inaynu noodgaraysanno waxyaabaha muhiimka ah aynu noodgaraysanno ihtimaamna aynu siino tobabarkan ay bixinaysa hay-adda UNDP ayaa waxaa fulinaya khuburo ku xeel dheer arrimaha xeerdejinta iyo dimuqraadiyadda iyadoo qorshuhu yahay in muddada 3 beri ay tobabarku socdo mudanayaasha cusub arrimahaas faham buuxa laga siiyo. Jacfar Macalin Maxamed, Puntland TV, xarunta golaha wakiilada magaalada Garowe. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheena Cabdinaasir Musharraf oo nooga soo warramay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen ayaa lagu magacaabay 10 wasiir oo ka mid ah wasaaradaha maamulka koonfur galbeed waxaana wasiirada la magacaabay ka mid ah wasaaradaha qorsheynta maaliyadda amniga kalluumaysiga iyo wasaarado kale waxaana wasaaradahan ay hordhac u yihiin golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed warqadda magacaabista 10 wasaaradood ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed waxaa saxaafadda u akhriyay Nuuruddin Yuusuf Gacama oo ah afayeenka madaxtooyada koonfur galbeed. bismillaahi raxmaani raxiim aad ay u mahadsantihiin saxaafadda guud ahaanba halka timid iyo shacabka koonfur galbeed Soomaaliya madaxdaba xeerka madaxweyne ee lambarka eber hal 2 February 2019 kuna saabsan magacaabista wasiire ee xukuumadda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobka 48aad farqadiisa 2 iyo qodobka 54aad farqadiisa 1aad markuu la tashaday baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya markuu tixgeliyay soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku saabsan baahida loo qabo wasiiro aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed ka sugayeen xukuumadda markuu xeeriyay magacaabidda qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda koonfur galbeed ee Soomaaliya wasiirada lambar 1 Axmed Madoowe Nuunow wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Axmed Maxamed Xuseen wasaaradda maaliyadda محمد أبوكر عبدي وزارة أرمها جودها يدولها هوسه إسحاق علي صبغ وزارة أمنية جودها مصطفى علي إيدو وزارة بيرها يورابكا فيصل عبد الله علي وزارة شقادة يشغالها عبد الرحمن عثمان ملاق وزارة وحبرشدة عبد القاني عبد الله محمد وزارة كلوميسيغا يو قيرات كبدا أحمد شيخ محمد لوح مشروع لو يقانو وزارة هولها جود يو ديبوديسكا محمد علي حسن وزارة قناعسيغا يو ورشدها حير كان وحا ودقنقليا مركا او صحيحو مدحوينها دولة كونفور قلبات الصومالية وانا صحيحي وما سنتين 10 wasaaradood oo uu soo magacaabay mudane Cabdicasiis Laftagareen ayaa waxa ku jira wasaarado muddooyinkii u dambeeyay si aad loo hadalhayay inkastoo wasaaradaha qaarna ay harsan yihiin Cabdinaasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dowladda Puntland magaalada Baydhabo waatay daawadayalkan naga daawanaysaan waa TV-ga raadiyaha dowladda Puntland stuudiyaha ku leenahay magaalada Garowe caasimadda Puntland ayuu idin kaga imaanayaa warka dunida
anigoo bishro garaasa ayaa idin waramaya haatanna qodobka aan dibadda idinkaga hayo. sawiraan naxdin leh oo la helay ayaa muujinaya biyo xireen ku soo dumay koonfurta waddanka Brazil kaas oo ku fatahay goobaha macdanta laga qodo waxaana ku dhintay ama lagu leeyahay in ka badan 300 oo qof. sawirada oo ay duubeen kaamirada qorsheyn ee CCTV ayaa muujinaya daqiiqadii biyo xireenku ku soo dumay maqaayad kafeega laga cabo oo ku dhex taalay shirkadda macdanta iyo dhismooyinka. waxaana soconaya howlgal baaritaan oo lagu ogaanayo waxa dhaliyay in biyo xireenkaasi uu dumo. goobta macdanta laga qodo ayaa waxaa iskale shirkad lagu magacaabo Fayel SA. shilkan ayaana ah kii labaad oo ka dhaca goobaheeda macdanta laga qodo 3 sano gudahood. 5 qof ayaa loo soo xiray sababaha dhaliyay in biyo xireenku uu ku fataho goobta macdanta laga qodo. waata daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii dunida idinkaga imaanaya xarunta dhexaana ku leenahay magaalada Garowe caasimadda Puntland. balse intaana ka bixinaan din xasuusiyo qodobadii wararkayga ugu waaweynaa. madaxweynihii hore dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u anbabaxay dalka dibadiisa ayaa lagu sagoontiyay magaalada Garowe. madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo magacaabay qaar ka mid ah golaha wasiirada. boqolaal qof oo ku geeriyooday biyo xireen ku soo dumay dalka Brazil. waata daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warkii dunida idinkaga imaanaya xarunta dhexe aan ku leenahay magaalada Garowe caasimadda Puntland. anigoo bishro garaasa ayaa idin waramayay aniga iyo asxaabtii warkaygala qayb gashay dhammaantayo warka xigeenteenu kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.